عليكم ورحمة الله وبركاته. داود محاد كتقانا تاريخ دي سلطان محمد قان الفاتح محمد الثاني سلطان ديك فربدن ودادي سي urumey hadalka nabiga sallallahu alayhi wasallam gaala farabadan qudha ka jaray si uu dhabeeyo riyadiisa oo ahayd inuu furto magaalada Qustandiniya ee haatan loo yaqaan Istanbul ahna mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi Turkiga ahaan jirtana caasimadda wadankaasi qarniyo farabadan. geesigani ku dhex nool dhiigga muslimiinta waxa uu dhashay 26 Rajab 833 Hijriyada taasoo ku beegan 20 Abriil 1429 miilaadiga. aabihii wuxuu ahaa amiirka muslimiinta oo ah mid ka mid ah amiiradii dowladda Cusmaaniyiinta. aabihii si uu tababar wiilkiisa Maxamed wuxuu u qabtay culimo aad u cilmi ilaah ka cabsi badan si ay ugu tarbiyayaan diinta islaamka iyo jihaadka. macallimiintiisa waxaa ka mid ah Sheekh Akhshamsuddin. sheekhu wiilka yar markuu cashirka u dhigo ayuu maalin waliba kaxeeyaa wuxuu mariyaa xeebta badda markaas ayuu sheeda ka tusaa magaalada Qustandiniya oo heer loo arkayo markaas ayuu ku yiraahdaa ma arkaysaa magaalada halkaasi ka muuqata waxaa lagu soo dari doonaa dowladda islaamka. waxa uu yiri rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee Qustandiniya waad furan doontaan waxaana nimco iyo kheyr oo dhan helay amiirkii furta halka iyo ciidanka uu hogaaminayo. maalin kasta xadiiskaas ayuu ku dul akhriyaa wuxuuna u sheegaa in cidda xaqiijinaysa ay isaga tahay ee kheyrka iyo barakada rasuulka sheegay helaysa. wiilka yar maskaxdiisa ayay ku duumatay arrintaas. habeenkii markii uu seexanayana wuxuu sawirtaa isagoo ciidankii hogaaminayo oo dagaal socdo oo dhiig daadanayo. habeen waliba sidaa ayuu ku seexdaa wuxuuna niyadiisa ku laray qalbigiisana ku dheehay inuu noqon doono kii furan lahaa magaalada Qustandiniya ee haatan loo yaqaan Istanbul. aabihii oo markaa ahaa amiirka muslimiinta wiilka yar waa kaxeeyaa mar kasta oo jihaad jiro si uu u soo tababarto hadhowna markuu xukun qabto duruustaasi ay u anfacdo una barto hogaaminta ciidanka iyo dagaalgelintooda. markii uu aabihii dhintay isaga ayaa noqday amiirkii muslimiinta. wuxuu ahaa wiil yar oo da'diisu tahay 23 jir kaliya. mushkilado fara badan ayaana waqtigaa jiray gaar ahaan dowladihii gaalada ee xuduudda la lahaa dowladda islaamka ayaa mid waliba waxa ay doonaysay inay dhul ballaarsi samayso oo dhulka muslimiinta ay wax ka qaadato. waxaa la sheegaa inuu isku keenay dadkii caqliga khibradda iyo aqoonta lahaa si ay arrimahaasi ugala taliyaan. waxay markiiba liis dheer ugu qoreen mushkilado fara badan iyo mid waliba sidii loo xalin lahaa. suldaan maxamed alfaatix markuu arkay mushkiladaha tirada badan haddii mid loo bilaabo xalintooda waqti dheer inay qaadanayso ayuu markiiba wuxuu ku hadlay hadal xigmad noqday oo yidhi noloshayda oo dhan ku dhammaysan maayo mushkiladaha xalintooda. intaa kadib wuxuu qaaday tilaabo aad u muhiim ah oo ah xaqiijinta hadaf weyn oo sharaf iyo qiimo leh. haddii uu ku guulaystana ay dhammaan mushkiladaha kale oo dhani xalismayaan waana furashada Qustandiniya. suldaan maxamed waxa uu bilaabay inuu isku dabarido dowladda oo uu habeeyo haddii ay tahay mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid ciidanba. wuxuu bilaabay markiiba inuu ciidanka awoodda saaro oo tababarkii u dambeeyay uu siiyo hubka nuucii ugu dambeeyay ee waqtigaana ku qalabeeyo. kadibna wuxuu bilaabay inuu wada hadal la yeesho ninkii xukumayay Qustandiniya oo uu ka dalbaday inuu magaaladaasi si nabadgelyo ah u soo gacangeliyo. hase ahaatee boqorkii Qustandiniya arrintaasi aad buu u dhaliilay wuuna diiday wuxuuna codsigaa ku tilmaamay waxaan marnaba suuragal ahayn. kadib ayuu maxamed alfaatix waxa uu yidhi laba mid bay noqonaysaa in Qustandiniya aan carshi ku yeesho iyo inaan qabri ku yeesho. markaas ayuu dagaal ku qaaday waxaana la sheegaa dagaalkaasi inuu socday muddo 51 maalmood. dagaal adag oo naf iyo maal badan labada dhinacba ay kaga lumeen muslimiintana xaggooda u ah sharaf ayaa halkaasi ka dhacay. ugu dambeyntii maxamed alfaatix wuu ku guulaystay inuu furto magaaladaas halka ayuuna ku xaqiijiyey riyadiisii riyada aabihii iyo weliba riyada shiiqiisii kuna noqday amiirkii ku xaqiiqoobay xadiiskii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. in ka badan 7 qarni ayaa amiiradii ka horreeyay mid waliba isku dayi jiray inuu furto laakiin waa ku adkaatay. waxaase guusha la hoyday wiilka yar oo ay da'diisu ahayd markaa 23 jir. waa arrin mucjiso ah markaynu geesigan yar la barbar dhigno dhalinta maanta da'doodu tahay 23 jir waayo waxay ku jiraan gacanta waalidkood oo maba gaarin goor ay madax bannaanaadaan oo ay isku filnaadaan. halkan ayaynu ku soo gabagabaynaynaa taariikhdii geesigii weynaa maxamed alfaatix. inta aan barnaamijkan oo kale ah amaba ka qiimo badan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim.